ان واتهاي شيخ عبد الله سنتي ان بل انو باقو خدka xiga telefonka ee barnaamijkan kala qayb qaadanaya barnaamijkan waxaanu kaga hadlaynaa caawa awliyada السلام عليكم سودو هلو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني سؤال هذا يا هلك كسو هادليسو والله دي بدي سلام يا شيخ الله أنا سؤال لي ما وش عليه سؤالي بالورش كذا ما دوني يا شيخ أنا قصير واتاي وحنا ويدينا يا شيخ مارتي أديت يا رجل كنا خرافات في قبل قفنا أولي راهي بلغي بين أولي وقاسة إذا بعدين وحيلا قال الغدة جياتك مركاين قفنا أولي ربطة يمكن ذلك قلبي لغي أبعد تحدثي نحيو حيلا قال مسلم تجري حاسس هذا الوقت صاري وهاga god baa tahay waatay kula daawadahaasi waxa laga yaabaa barnaamijka qaybtii hore dhaaftay balse waan ugu celinaynaa sifaadka awliyada lagu garan karo bal su'aasha intaan waayo alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuul waa su-aalo aad iyo aada muhiima oo mudanna dadku had iyo jeer hale inay isweydiiyaan maadaama mawduuca awliyada iyo waxyaabaha ku saabsan dadku aad ay uga hadlaan oo in badan ay falaqeeyaan waxyaaba fara badanna laga yaabo inay ku saleeyaan sida hore baan u sheegay awliyadu waa laba nooc awliyaa uraxmaan kuwa allah raxmaankaa u dhow allah raxmaankaayna uu soo dhoweeyo iyo kuwa la idhaahdo awliyaa shaytaan shaydaanka u dhow yihiin shaydaankaana soo dhoweeya islamarkaana adeegsada labadabana waxaynu hore u sheegeen inay wax ka muuqdaan kuwa awliyaa uraxmaana waxaa ka muuqda karaamaat lawliyaa baa la idhahdaa kuwa shaydaanka u dhow shaydaankuna uu adeegsado waxaa ka muuqda waxaa la idhaahdaa axwaal shaydaaniya xaalado shaydaan ka soo fulay haddaba ta muhimkii waxa weeye maxaa lagu kala garanayaa awliyaa uraxmaan iyo awliyaa shaytaan horta waxaynu sheegnay marka koowaadba cid kasta oo waxaan la arki jirin ama aan dadka caadiga looga barani ay ka muuqdaan ama wax la maqlo ama wax la arko ama wax la sameeyo inaan markiiba loo qirahayn inuu weli ilaah yahay oo arrintaasi waxay ka muuqan kartaa qof awliyada ilaahay ka mida waxay kale ka muuqan kartaa qof awliyada shaydaanka ka mida waa in qofka dib loo raaco raadraac lagu sameeyo siiradiisa iyo camalkiisa iyo dhaqankiisa imaamkii weynaa la odhan jiray alimaamu shaafici raximah allahu tacaala wuxuu yihi idaa ra'aytum arajula yatiiru fi lhawaa aw yamshi cala almaa falaa tashhaduu lahu biliimaan aw bilwilaaya xataa tanduruu fii camalihi haddaad aragtaan nin hawadaa duulaya sida diyaaradoo kale ama biyahaasi iska dul socdo biyuhuna aanay liqahayn oo aan degahayn markiiba ha odhanina wax la yaab labaa ka muuqday oo qofkaasi waa weli ilaahay odhanina iimaanaha uga markhaati kicina waxaa dhici karta nin hunduusi inuu saas yeelo u duulo ama biyahaba waxa weyaan uu dul socdo oo shaydaan xagga hoose ka hayo ama shaydaan uu qaado dadku shaydaanka aanay arkahayne isaguuna ay arkayaan waxaa dhici karta mid looda caabuda waxaa dhici karta mid kiristaana arrimaha noocaasi inay ka dhacaan marka intaasoo qura weli lagu noqon maaye qofka camalkiisa eega buu yihi alimaamu shaafici raximah allahu tacaala arrintaasuna waxay ka dhalatay ilaahay markuu awliyada ku sheegay qur-aanka wax awliye la yidhaha un ilaahay ma sheegin rabbi subxana wa tacaala wuxuu sheegay tilmaamo iyo sifaad ay leeyihiin waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu yidhi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun horta rabbi subxana wa tacala wuxuu sheegay awliyada abaalmarin uu siinayo wuxuu rabbi sheegay inaanay marka ay dhintaan aanay murugoonahayn isla markaa aanay baqanahayn macnaa wax fiican oo ay ku farxaan ayay la kulmi doonaan wixii adduunyada ay kaga tegeenna dayac uga baqi maayaanoo allah baa subxaana wa tacaala u ilaalinaya waayo haddaba awliyo aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa labadaa sifo waa kuwii iimaanka lahaa maxay rumeeyeen wax kastoo ilaahay uu ku waajibiyey inay rumeeyaan wa kaanuu yattaquun taqwadan waa in diinta lagu camal falo oo qofka wixii la farayna uu sameeyo wixii loo diidayna inuu iska daayo idan welinimadani wax kala maaha dadku hadda welinimadii waxay u haystaan qofka inay wax ka muuqdaan oo isagoo duulaya la arko ama dab dhex gelayo xagga kale uga baxaya oon ku gubanahayn ama biyo isagoo oo dul socda ama isagoo qof odhanaya dhimo oo qofkii naftu ay ka baxayso waxaas dadku welinimo u haystaan welinimadu taa maaha ee waa inuu qofku allah rumaysan yahay iyo rasuulkiisa iyo diinulislaam diintana uu ku dhaqmo diintu xidhiisa ay tahay waa ta keentay culimadu inay yidhaahdaan
yaa awliyaa horta waxa awliyaa muuminiinta oo dhan qof kasta oo qalbigiisa iimaanu ku jiraa waa weli ilaahay qof kasta oo qalbigiisa iimaan ku jiro diintana ku dhaqmaa walow waxa ka maqnaadaane waa weli ilaahay waalmu'minuuna kulluhum awliyaa raxmaan laakiin awliyadu waa darajaad iyo waa maraatib sidee loogu kala sarreeya welinimada sida loogu kala sarreeya iimaanka iyo alla ka cabsiga qof kastaaba qofku ka badsada iimaanka iyo diinku dhaqanka ayuu kasii welisan yahay laakiin muuminiinta oo dhan ayaa welinimada wadaaga marka qofka ay wax inooga muuqdaan maadaama labaduba ay dhici karto inay arrintani karaamo tahay iyo inay arrintani tahay xaalad shaydaanku uu ka muujiyey qofka xaalkiisa aynu dib u eegayna horta qofkani ma qof muslimaba mise waa qof gaala hadduu gaal yahay dee gaal ilaahay maamuusi maayo ilaahay karaameyn maayo meel ka dhac bay ilaahay ku tahay inu dhahno gaal buu ilaahay subxana watacaala maamuusay gaal ilaahay ka gaaloobay waayo u kaalay qofkii haddii uu yahay tusaale ahaan muslim qofkii haddii uu yahay oo diinta islaamka ku abtirsanaya waa shahaadanaya laakiin salaada ma tukado bisha rabadaan ma soomo isagoo wax iska cunaya ayaa qofkii la arkaa markuu doono wuu isqaawiyaa cawradiisa ayuu muujiyaa wuxuu ku hadlaa wax dadka muuminiinta ay ka xishoodaan hadduu doono diinta ayuu caaya dadka ayuu caayaya wuxuu doono ku hadlayaa dadku xoolahooda iska qaadanaya dadku u hanjabaya oo odhanaya haddaad waxa ay sii weydaan waxaasaan idinku samayn doonaa taas waxay muujinaysaa qofkaasi inuu yahay qof shaydaanka xidhiidh la leh waxa ka muuqday oo dhamina ay yihiin xaalado shaydaanku uu ku caawiyey si uu dadka u lumiyo haddii qofka xaaladiisan innaga inoo muuqataa ay wanaagsan tahay oo qofkii istiqaam iyo toosnaan ay ka muuqato waajibaadkii uu gudanayo xaaraantii uu ka dheer yahay welinimo aanu sheeganahayn sideedaba waxaad calaamad su-aal saartaa qofku hadduu welinimo isagu sheeganayaba oo dadka muuminiinta waxaa lagu yaqaana tawaaduc abubakar welinimo muu sheegan cumar muu sheegan cuhmaan ma sheegan cali ma sheegan iyagii raggii kale jannada loogu bushaariyey mid yidhi weli baan ahay ma jiro haddaad aragto qofku isagoo dadka u hanjabaya oo leh haddaad waxaa samayn weydaan haddaad siyaaradii bixin weydaan waxaasaa idinku dhacaya oo awoodo qarsoon sheeganaya haddaad aragto qofkaasi qof weli ilaahay oo toosan ma aha wax allaaliya wixii ka muuqdaana waa axwaal shaydaaniya oo shaydaanku uu ku taageerayo had iyo jeer alana kuwa isku khaldami kara ma aha awliyada ilaahay dhabta ahi iyo kuwa shaydaanku wax uu ka muujiyo markiiba dhaqankooda iyo camalkooda ayaa kala saaraya waa tahay khadka xiga cabdirashiid jambir hallo sheekh inta khadkaasi soo socdo goormaa la odhan karaa qofkaasi waa weli iyadoo kooban horta su-aasha isweydiinta le waxay tahay taa lafteeda ka dhalanaysa maxamedow qof gaara ma la odhan karaa qofkaasi waa weli hebel waa weli maxamed waa weli jaamac waa weli islaanta cambar waa weliyad horta ma la odhan karaa waa qadiyad culimadu ay ka hadlaan si guud baa loo sheegaa awliyada oo la dhaha dadka sifaadkaa lihi waa awliya laakiin shaksi gaara markay timaado qof gaara inagu markhaati ugama noqon karno inuu yahay weli ilaahay waayo welinimadu saynu sheegnay laba arrimood bay qofka kaga xidhan tahay labada arrimood midi way inoo muuqataa oo waa toosnaanta guud ee qofku diintii inuu ku toosan yahay oo waajibaadkii uu gudanayo xaaraantiina uu iska ilaalinayaa waa mid muuqata waa taqwadii iyo diinku dhaqankii laakiin arrinka labaadee welinimadu ay ku xidhan tahay weliba ka asalka ahi oo iimaanku waa wax inaga naga qarsoon qofkan ma ogin inagu qalbigiisa inuu iimaan ku jiro iyo inuu iska sheeganayo munaafiqiin baaba jiray dee waktigii nebiga caleyhi isalaatu wasalaam xataa nebigu aanu ogeyn ilaa dee waxyi loogu sheego saxaabaduna aanay garanahayna dee muslimiinta waxa weeyaan ku tirsanaa waayo qofka dee qalbigiisa inagu ma ogin ma iimaan baa ku jira mise iimaan kuma jiro marka welinimadu waxay farac ka tahay iimaankana culimadu waxay dhahan qof mucayan oo gaara lama odhan karo hebelkaasi waa muumin iyadoo loo jeedo iimaankii jannada lagu gelaya baa qalbigiisa ku jira ee naarta lagaga badbaadayay waa muumin haddii la yidhaahdo iyadoo loo jeedo wuxuu ka mid yahay dadka axkaamtan diinta islaamku ay koobsanayso taasi iyadu dhibaato ma laha laakiin haddii loo jeedo qofkaas waa mu'min macnaheedu yahay ilaahay baa jecel subxaana wa tacaala waa qof jannada haddii saa uu ku dhinto geli doona waa qof naar ka badbaadaya taa lama odhan karo waa wax qarsoon inagu qofku wuxuu inoo sheegto
ayaynu ku xukum siinaynaa oo axkaamtii islaamka waynu siinaynaa hadduu islaam iyo iimaan uu sheegto. laakiin iimaanka qarsoon wixii axkaame ku xidhan oo welinimadu ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay qofkani janno inuu gelayo iyo inaanu janno gelahayn, arrimaha noocaasi way naga qarsoon yihiin, inagu kama hadli karno. ilaahina subxaana watacala wuxu uhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca walbasara walfu'aada kulu ulaaika kaana canhu mas-uula. ha ka hadlin waxaanad aqoon u lahayn, waayo waxa aad ku hadasho iyo waxaad dhegaysato iyo waxaad qalbigaaga geliso intaba waa lagu weydiin doonaa. marka inagu si guud baynu uga hadlaynaa awliyada iyo tilmaamaha ay leeyihiin, laakiin qof gaara oo hebela ma odhan karno qofkaasi waa weli waa weli ama ha noolaado ama qof dhintay ha noqdo. wallahu aclam.